Это снова я, доктор Детектор. Halkan nagala socotaan waa Riiraash Films. Qofkeeda la hadlayo walaalkeena Riiraash. Welcome back. Mar kale iyo muuqaal cusub. waxaa macquula inaad ila yaaban tahay isleedahay ninka odayga ama soo waashay maxaa codkan hoos u dhigayo shanqartan uu microphone ka sameynayo muuqaalada noocan oo kala waxa laga yaabaa qaarkiin inay kasoo horbaxaan YouTube-ka ama TikTok kaga soo horbaxaan waxa loo yaqaanaa ASMR mawduucina asiga ayuu ku saabsan yahay waxa uu yahay faa'iidadu leeyahay annaga Soomaali ahaan ma isticmaali karnaa faa'iido maxaa la yiraahdaa ma noo leeyahay lacag ma ka sameyn karnaa intaas oo dhan waxaan kaga hadli doonaa muuqaalka ASMR ayaan maanta sharaxaad ka bixin doonaa waxa uu yahay inta nooc u kala baxo guud ahaan ASMR wuxuu aad ugu kala qaybsamaa laba qaybood qaybta waa mid physical ah oo qofka si direct ah loogu sameeyo qaybna waa indirect oo muuqaal ahaan adigoo video daawanayo ayuu saameyn kugu yeelanayaa waxaan la yiraahdo ASMR haddii aadan garanaynin ASMR waa xarfo la soo gaabiyay eeda waxa laga soo gaabiyay autonomous est waxa laga soo gaabiyay sensor mt waxa laga soo gaabiyay meridian halka arta laga soo gaabiyay response erayadan oo la isku keenay ayaa waxa loo yaqaanaa ASMR okay ASMR muxuu ku sameynayaa ASMR wuxuu ku sameynayaa in markaas jirkaaga waliba gaar ahaan dhabarka maskaxda jirkaaga inta qaybta hoose oo dhan ee dareento markii aad barnaamijkaas daawanaysid ama aad dhageysanaysid ee dareento deganaan raaxo ee dareento okay ASMR-ka midka oo physicalka ah waxaa inta badan maxaa la yiraahdaa lagu sameeyaa goobaha message-ka lagu sameeyo ama timijaraha noqdo ama meel gooni oo la furta ha noqdo tusaale ahaan muuqaalkan oo kale asla aragna muuqaalkan saarkaysiin qofka waxaa loo masaajeynayaa madaxa masaajadan lagu sameynayo marka koowaad sharcigeeda waxay tahay goobta masaajada horta waxa weeyaan goob degan shanqar ma lahan shanqarta kaliya aad maqlaysid waa gacmaha ninka maxaa la yiraahdaa masaajka ku marinayo iyo timahaaga dhawaaqa ka dhaxdhacayo markuu saliida marinayo markuu maxaa la yiraahdaa madaxaaga xagga dambe iyo xagga horeba uu gacanta saafara u gelinayo dhawaaqaas dhag ahaan waad maqlaysaa sidoo kaleeto ficil ahaan waad dareemaysaa maxaa yeelay lafaha madaxaaga oo dhan ayuu duugayaa xataa ilaa garbaha ilaa waxa ku jirto marka kan waa marka nooca physicalka waaye massage ahaan lagu sameynayo dhowr nooc oo kale leeyahay marka oo hadda inta badan reeslayaasha Soomaalida ma aqaan inay sameeyaan laakiin caalamka massage-ka waa la sameeyaa marka ASMR-ka dhawaqiina waxaa maqlaysaa dhawaq degan oo shanqar yar oo de maxaa la yiraahdaa aad leedahay ya dhageyso si fiican u dhageyso iyo jirkaagii oo massage aad la marinayo okay qaybtaas waa qaybta physicalka waana qaybta aniga Riiraash ahaan aan aad u jeclahay qaybta labaad waa qaybtii aan video-ga ku bilaabay oo ah codka gaaban shabaqda waxyaabaha noocaas oo kala waxaad ku aragtaa inta badan TikTok-ga iyo YouTube-ka wali TikTok inuu dhowr markaas soo horbaxa laga yaabaa sida muuqaalkan oo kale Привет, это снова я, доктор Детектор. Добро пожаловать на ASMR прием. Устраивайся поудобнее, расслабься, ничего страшного не будет. Сегодня хочу... Dhawaqyada marka ninkan uu sameynayo marka koowaad waa codka sida xanta oo kale xanta marka qofku sheegayo soo dhigta isku ma sheego codka xantada leh sidoo kaleeto wuxuu microphone-ka ku sameynayaa codad kala duwan sida codadkan oo kale ay microphone-ka ku sameeyaan tusaale ahaan kan oo kaleeto in shanqarta yar tusaale ahaan codadka yar ee jabaqda ah hadalka yar ee la gaabinayo dhamaan waxyaabaha noocaas waxaa jira dad maskaxdooda relax ay ku dareento dad marka ay maqlaan maskaxdooda hurdo ka imaanayso waliba dadka badankood waxay aaminsan yihiin marka codadka noocaas dhageystaan inay hurdaan macnaha ay dareemaan inay macnaha jirkooda hurdo u baahan yahay waxaa la sheegaa
cilmi baaris la sameeyey 2015 iyo 18 in barnaamijkan ASMR-ka waliba gaar ahaan midka codadka ah uu sameeyo inuu hoos u dhigo garaaca wadnaha oo macnaha inuu wadnaha qofka markuu shaqo adag ku jiro wadnihiisa aad u garaaca laakiin qofka markuu raaxo dareemayo uu nasto uu maxaa la yiraahdaa hurdo isku diyaariyo garaaca wadnaha mar walba hoos ayuu dhacaa marka wuxuu ka caawinayaa qofkan in garaaci wadnaha dhiigii aadka u socdo inuu hoos u dhigo isla markaasna qofka uu dareemo raaxo ASMR-ka siyaabo kala duwan ay u sameeyaan dad waxaa jiro iyaga maxaa la yiraahdaa microphone-ka shanqarta ku sameeyo dad waxaa jiro toosh dadka indhaha kaga qabto oo macnaha kaamirada toosh kusoo qabanayo kuwa waxaa jiro ku dhahayo iyagoon kula jooginba madaxan ku masaajeynayna madaxaagan gacanta geliyay weliba codkan raaxada leh ee hoose lagugu sameynayo waxaa kaloo jiro barnaamijka ASMR-ka kuwa iyaga laftirkooda agtaada ku seexanayo macnaha agtaada ku seexanayo markaan ku leeyahay macnaha online iyagoo ah iyo online-ka ku seexanayaan marka waxay leeyihiin adinka ay wehelinayo kulay dad ayaa jecel hurdana ku dareemo waxaa laga yaabaa Soomaaliya data ina waxaas la yaabaysid boo hadii codka qofka gagaabay waraa qofka moolaya ma caadi u hadlo laakiin dadka caalamka dad ayaaba aad u jecel dadka barnaamijyada soo bandhigana waxaa jiro malaayiin dad ay ku xiran yihiin 2 milyan 3 milyan ilaa 10 milyan qaarkood muuqaalo dhowr milyan ee daawata ku jiro ASMR marka aan u soo laabto aniga barnaamijkan Soomaali ahaan qaybtay faa'iido noogu leh kulay qaybaha kale waa iska sameyn kartaa TikTok kale oo ku kala kacsan kartaa oo soconaya laakiin qaybta dhalinyarada timaha jirto balbiiraasha u furan ama reslayaashaba ay raahday waxay ka faa'iideysan karaan qaybtan massage-ka maxaa yeelay dadkeenu way jecel yihiin massage-ka laakiin ma jirto goob adeeg isla markaas degdeg ah qofka uu ka helo tusaale ahaan marka resla aad tagtid oo nimanka aan ka hadlayaa dumarkana waxay tagaan jeeriga ama koofeerka tagaan soo marka aad tagtid resli oo timihii lagu jiro asal xaji waa muuqaal arkay oo saasoo kale loo sameeyay qofku waa u baahan yahay in loo duugo lacagtuna uu bixinaya marka adiga maxaa ka helaysaa meesha lacagtii aad ugu jartay marka ka qaadatid lacag kale extra oo massage jiro meesha faa'iido labaad kugu jirto ma fahantay hal qof inaad dhowr lacag ka dishid waliba dadka aad ay u jecel yihiin hadii lagu barto massage-ka iska sameey ma ahan waa inaad u soo yara practical gareysaa neerfayaasha qaybaha qofku u baahan yahay in maxaa laga daliigo dadkeena runta markii laga hadlo way u baahan yihiin massage-ka madaxa waliba massage-ka madaxa aniga shakhsiyan hadaan ka hadlo I love it waa jeclahay waxaana inta aan ka bartay Allah u naxariistay ayeeday ayaa marka aan hurdo u baahdo dhabteeda inta ku seexdo isaa madaxa adeynta faraha geliso waxaan dareemi jiray raaxo isla markaasna hurdo iga imaan jirtay so marka waa la qabsaday marka massage-ka madaxa aad u wanaagsan yahay caafimaad ahaan maskaxda timaha haraga waxa soo dhan aad u wanaagsan yahay marka ganacsi ahaan markay noqotana de qofkan raislaha ahaa way u fiican tahay haduu programka ku soo siyaadiyay ganacsigiisa wuxuu noqonayaa mid hormaro I'm sure waliba raislaha waa isku soo sheegayaa raislaha sameysto qayb massage oo macnaha qofka inaad gudaha geesido aad jirko dhan u masaajeynayso ma kaliya waxa u masaajeynaysaa inta kurka madaxa hadii u badatana garbaha ilaa dhabarka oo qofkii kursigiisa kama kacay asoo kursigiisa fadhiyo kursiga ugu jaraysa fadhiyo oodan qaawinin dharna ka siibin ayaa u sameynaysaa kaliya waxa muhiimka waxay tahay qofka marka u jartid in timihiisa aad saliido kala duwan oo qofka tintiisana aan dhaawac u geysanaynin oo saliida oo iska macquul ah aad madaxii u marisid ugu daliigtid aad maxaa la yiraahdaa timihiisii aad ugu sameysid maxaa la yiraahdaa jiidis yar iyo daliig yar adiga massage madaxa waa garan kartaan kulay qaabka loo sameeyo marka I'm sure barnaamijkaas hadii ku soo saacidiyaan dhalinyarada raislayaasha ama meelaha bilbiyeerida furtay in dadka aad u jeclaan doonaan waliba lacagta extra-ga ee ku soo rogaan iyagana faa'iido tahay dadkana ay noqon doonaan marka kale inta ku soo feelo marka barnaamijka ASMR-ka kulay waxa laga yaabaa ina aragtay la yaab jirtaa dhigtaan dadkan waa waalan xataa dadka microphone-ka intay u qaateen biryar u qaateen oo qarafta ku haya qaarsa salaaxayo waxyaabo kula yaabay ahaayeen Soomaa laakiin xaqiiqada markii laga hadlo waa wax jiro caalamkana shaqo ahaan laga shaqeysto haday noqon lahayd online-ka haday noqon lahayd mid caadi oo meelaha
dadka timaha loogu jiro ama loogu qurxiyo laga helo. barnaamijka ayaa rabay inaan idinla wadaago muuqaalkan sida uu aragtid commentiga noogu soo qor haddii aad barnaamijkan asmarka aad hore u aragtay ama aad jeceshahay waxaa ka faa'iiday sidoo kaleeto iyadana commentiga noogu soo qor. muuqaalkeena intaas kusoo gabagabeynaya intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaa idinkaga tagaya sidaa nabadgelyo, peace and love.